siyaasiga dustuska badan shicibka jamhuuriyadda Somaliland isha ayay ku hayaan waa ciwaanka maqaal duurxulo uu qoray siyaasi iyo falanqeeyo siyaasadeed Cabdiraxmaan Cadami waxaana uu ku bilaabay qoraalkiisa Cabdiraxmaan Cadami maalmaha social media waxa dhex wareegaya warar xasaasi oo laga soo xigtay ila wareedyo muhiim ah iyo sidoo kale xogo hoos oo laga helay diblomaasiyiin fadhigoodu yahay Nairobi iyo dalka Kenya kuwaasoo tibaaxayeen siyaasi ka tirsan xisbiyada mucaaradka uu la wadaagay xaaladda siyaasadda jamhuuriyadda Somaliland waxa hubaal uga dhigay in xisbigiisu ku guuleysan doono doorashada madaxtooyada haddiise laga guuleysto Somaliland dagaal sokeeye ka dhici karo waxa kale oo laga sheegay xisbi ahaan ay ka soo horjeedaan heshiiska Itoobiya iyo Somaliland oo aanay marnaba aqbali doonin saldhigga ciidanka badda ee dalka Itoobiya diblomaasiyiinta uu la kulmay way fahmeen doodiisa in xisbigiisu guuleysan karo waxayse la yaabeen dagaalka haddii laga guuleysto arrinta ku saabsan xiriirka Itoobiya iyo Somaliland diblomaasiyiinta uu la kulmay waxa ay kala garan waayeen inuu yahay mas'uul wakiilka xisbi Somaliland iyo inuu yahay mas'uul wakiilka Soomaaliya oo afkii xukuumadda Xasan Sheekh ku hadlaya si kastaba safaaradaha iyo sirdoonka dawladaha reer galbeedka ee ka howlgala gobolku waxay ayaan faylasha siyaasiyiinta iyo madaxda dalalka Geeska Afrika xogaha u kaysan waxa ka mid ah xilalka uu soo qabtay taageerada uu ka haysto ummadda inuu yahay siyaasi mabdala oo meel loogu soo hagaaga leh iyo inuu yahay mid dustus badan oo dantiisu agto oo lagu kalsoonaan karin waxay qiimeeyaan siyaasiga fursadaha uu ku noqon karo madaxweyne ama siyaasi saameyn leh mas'uulkan iyo kuwa kaleba kuma cusba xayndaabka diblomaasiyiinta Nairobi muddo dheer waxay la socdeen dhaqdhaqaaqiisa maruu xil hayay iyo mar aanu haynba waxay og yihiin inuu tartamay ra'iisul wasaare ku-xigeen Soomaaliya waxay og yihiin inuu hadda u tartamay guddoomiyenimada xisbi ka mid ah asxaabta qaranka Somaliland waxay la socdeen inuu ku biiray haddana mid kale siyaasi Cabdiraxmaan Cadami ayaa qaybihii dambe maqaalkiisa waxa uu ku yidhi akhriste diblomaasiyiinta fadhiya Nairobi siyaasigan way uga xoogaalsan yihiin xaaladda siyaasadda jamhuuriyadda Somaliland warbixinta uu siiyana uma arkaan inay sax tahay dhinacooda iyagoo saadaasha natiijada doorashada ay hayaan ay ka duwan tahay rajada uu ka sheegtay ee guusha xisbigiisa